waan islaam walaalayaal meel walba joogtiin kusoo dhawaadasha. maanta waxaan joogaa kuleet waad aragtiin aan umala nigama sheekeyn karo gurigeygaan joogaa. waan soo laabtay aniga odaygii waan heshiinay. waxaad ka dhigata gabartii tii caroon jirta lasoo celin jiray sama ee toolka markay ugu carooto la dhihi jiro hoy orada guri ku laabo soo tii la dhihi jiray ani tolkayga inay isii kaxeeyaano yaa isii afduwaan bay rabeen ka waran adduunya alla maxaan tan la-aanahay alaa kulli xaal gurigaan joogaa. aniga odayga waan heshinay. midda ugu koowaadaan ku heshinin waxaa guriga magaciisa in laigu qoro. marka gurigan anigu hadda igu qoran yahay. beri kamaan hadday khalaf imaato caro imaato asagaa baxaaya maana aniga ma baxay. tii boorsada qaadan jirtay ma ihi. alaa kulli xaal horta aad iyo aad u mahadsantihiin. dad badan runtii xisaab ma lahayn intii soo wacday mise ila hadashay mise isoo waanisay mise ila talisay, balse mid baa jirtaa oo bini aadanka marnaba aanan ka dhaadhici karin. haddii aan Soomaali nahayna xaggaasaa ma kusii jirnaa. qaniisnimada albaab la furaayo oona la xiraayo ma aha. waa u dhalasho, waa dareen ilaahay kuu dhaliya, dareen ilaahay inoo dhaliya waayo oo marka lagama bixi karo lagumana soo noqon karo. aniga balan baan qaaday, balantaana waan ka bixi lahaa laakiinse balantii wixii aan ku qaaday maana arag. waxaan balantii ku qaaday muddo bil haddee hooyadii ila soo hadasho ya waan iska dhaafaya. hooyaday isla soo hadasho iska dhaafay telefoon hataa anigaa wadaadiyaba tol baan u diray, dad baa ii soo kacay, lambarada walaalo iyo kulli baan wada siiyey. wax ilaahay uunto akhbaar aan ka maqlay ma jiro. waxaa la yiri niyow sidaad u dhimato waaye mar horaan kaa samarnaa. it hurts. runtii aad iyo aad ayay si ii gelisa si aan u danqaday calaa kulli xaal. runtii dad badan oo rafaadsanaa jiraan. talooyinka badanaa midii ugu dambeysa oon soo geliyay gabadh waxay tiraahday masaajid gal, motivator noqo. waxaa dhahda waxa waan iska dhaafay oo dadkaas asaga wacdi camal view badanna waad ku helaysaa. runtii horta ani view badan marabi. ilaahay rumaal isu sheegin sabaab. ani maanta haddii 100 qof i daawato halkii maalin haddii 100 qof i daawato alxamdulillah shukr. haddii ay 22 mise 20 qof i daawatan alxamdulillah shukr aniga iskugu ka yimid. markaa inaa aniga been isku sheego oo wax u dhalasho oo ilaahay inoo dhaliyay miseba inoo abuuray aniga intaan banaan la soo istaago anoo fiyuraadis miseba dadka hay ugu jeclaadaan siwa Soomaalida hay ugu jeclaadaan, wadaadada hay soo dhaweeyaan, balse dareenkan aan garanayo deep down inay dareen aan laga bixi karin ay tahay. ani ma sheegin haddii adigoo soo qangaaray 20 meelahaas adigoo soo qangaaray intaad u imaatay ma iskaabulo darteed miseba shahwada ku haya darteed inaad la saxatay qof wiil aad la saxatay ood biyaha iskaga daadinaysa. taas ma sheegin. taas ma la dhihi karo qofkaas waa qaniis miseba dadka faraxsan. horta
gabar baa jirtaa aada u jeclaa waxay klibkay intay soo qaadatay dhahda waxay faraxsan yihiinna ma laha. runtii waan faraxsanahay, aada baan u faraxsanahay. problemkina haystana qoslam aan ugu baxnaa iyo farxaddaas. haddii maanta hal qof la saaxiib hal qofoo maanta aada u malaynayso dadka faraxsan yahay, qosol kama daalaysid iyo shactire iyo waxyaalaha iskama daalaysid. marka dad waxaan iska nahay iska farfuran iska ana bini aadankana adiga qaarkeena waxaa jiraan adiga dagaalo murmo caytamo way jiraan, way nagu jiraan dadka kulligeen waxaan nagu jirin mala. balse haddii xag loo fiiriyo xag haddii loo fiiriyo waxaan nahay dad aada u dhibaato badan, dhibaato u hoysta. waxaan arkay clip waxaan ka arkay tiktok wiil yaro 13 jir oo Soomaaliya, waa Soomaali meel wadamada westernka inuu joogaan u maleeyo. wuxuu leeyahay aniga waxaan ahay dadka faraxsan, fartaana kusoo fadhiista waxay ii sheegaysiin mala. aniga yarkaas ayaan disappointment aan ku sameynayaa haddii intaan masaajid galo ya been aan loo joogin intaan soo istaago oon dhaho aniga saas mihi aniga hadda waxaan yeeli karay inaan ii wado magaceeda sheekada. guriga xalitaan kusoo laabtay clipkii shalat aan soo geliyay daradan duubay waxaan yeeli karay inaan ii sheegin inaan aniga soo laabtay odayga ku laabtay. oo maalin walba aan maqaayadaas aan kasoo duubo waan yeeli karay aada iyo aada. balse ani dadkayga ii baahan, dadkayga markaan leeyahan waxaa ii baahan dadka faraxsan. dad badan baa waxay idhaheen horta mid baan ka reystay, hal mid baan ka reystay shukaansigii faraha badnaa. markaan dhahay waan ka baxay waan ka baxay aniga horta afkayga kama soo yeerin, waan ka bixi yaani dhahay. markaan dhahay waan ka bixi waxaan ka reystay nimanka ii shukaansan jireen oo telefonaha iisoo diri jireen oo bahaladooda iisoo diri jireen waan ka reystay horta alxamdulillah shukr taasu waan ka reystay. inkastoo hadda wiil isoo waco mar walbo Kenya joogo waan ku dhimanayaa waan ku jeclahay walaalayaal maxaa hadal isku daalin aniga waxaa noqday dee gabadhii intii la waaniga dhahday customer baa ii joogaan marka waan islaamay. dad badanaa horta igu nici doonaa, dad badan subscribe way igala laaban doonaan, laakiinse aniga waxaan hadda aan la soo fadhiyaa noloshaada daacad u ahaa. qaladna ha iga fahmina walaalayaal, anigu dadkaygaa tihiin madnaban igama maarmo. shalaytaan ii baahday beritaan ii baahan karaa. waxan waa adduun aniga hadda gurigan isma la haysiinayo oo haddii aan guriga aan kusoo laabto malihi nolosheedu maanta way u dhamaatay maya ka yaabin. taariikhdii ma hilmaamayo aniga looj ku saxday aniga aan meel la-aan aan ahaa, rafaadkii soo gaaray waxyaalahaas ma hilmaamayo. beritana waan ii baahan doonaa. ha igu noqonina sidii waalidka i dhalay oo i tuuray markaan dhahay aniga waxaan ahay dadka faraxsan. waan islaama walaalayaal meel walba joogtiin ilaa mar kale.